السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي كابي channel kan naga daawanaysan waa Ali Kaabe barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarta xalay dhacday BST iyo Bayern Munich ee koobkii lagu qaaday Champions League السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلي كابي channel kan naga daawanaysan waa Ali Kaabe maanta waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaarta xalay dhacday BST iyo Bayern Munich Bayern Munich oo koobkii xalay qaaday waa taas xalay waxay u ahayd habeen wacan Bayero waa kuwa ku damaashaday koobkii PSG-na waxay u ahayd habeen murugo waa xalayta waxa kaga naxsaday wiilka yare reer Faransa xalayta Faransiiska laga daawanayay PSG 20 sano ka bacdi talow ma soo noqon doontaa koox Faransiis oo koobka Champions League ku guuleysata see waxa ka naxiyay qalbigana jebiyay wiilka yare reer Faransiis isaguna ee PSG-na hore ugu soo ciyaari jiray oo gool shabaqa kala hubsaday waa kuwa soo damaashadayaan oo xalay wad baashaalayeen oo xalay koobkii bay gacanta ku dhigeen oo waxaan ku waa kooxda kaliya 100% waxaan ku iri 100% ku si xaraga lagu guuleysatay koobka ilaa waqtigii la bilaabay Champions League sanadkan koob iyo 10 ciyaarood ee la ciyaarayba koob iyo 10 kulan ee la ciyaaray kooxaha intaba soo badisay hadda intiiba xalay ugu dambeysay weli ma sameyn koox intaas oo dhan alla ismiina bab sameysay mar oo ciyaartii finalka koobka lagu kala qaaday ayaa laga badiyay markii dambe sidii bay gatana ayaa la gajibiyay marka ciyaartu waa kooxdii ugu horeysay nooca sameysay waa taas waxay koobkeedii lixaad ay qaaday oo Champions League oo Champions League oo markii ugu horeysay waa kaasoo 4 sano ka bacdi waxay qaadeen koobkoodii lixaad waa kuwaasoo ku baashaalaya PSG xalayta iyadana waa ka Neymar xalayta isagoo ilmeeyay Neymar waa ilmeeyay xalayta isaguna oo waa inaad shaqaysataa yaa akhi shaqo ma rabtaan inuu PSG koobna waa iska doonaysaane waa in kooxda lacag la geliyo kooxda waa in lacag la geliyo waxaan ku riboorka dib looga jafaa waliba kooxda Arab baa oo kooxda Man City oo kale marka kooxaha Arabtu leedahay horumar ma gaaraan